kulanti wacan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Daacad Aalaba halkan waxaan idinkugu soo gudbinaa xogii u dambeeyay guud ahaan geyga Soomaaliyeed muuqaalka inta daawanaysana waxaan ku soo gudbin doonaa madaxweynaha maamulka waqooyi bari Soomaaliya oo hanjabaad toos ah hawada u mariyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani hadaba muxuu ku eedeeyay sababtii ka dambeysay muuqaalka ayaa ku faahfaahin doonaa u fiirsada ilmadarwo istaqaan عدة سدا وكرتاس قرنيس مامولكين لبا meelood ka qiimeeyay dawladda federaalka iyo madaxdeedu dadaalka ay u soo galeen inay dhisaan maamulkan waqooyi bari ee maanta aynu harsanayno aynu ku liibaanay weligood may hambalyeynay markaana dhismaha maamulkan ee ay dawladda garwadeen ka ahayd waa dhaliilayeen waa maagayeen waa ka soo horjeedeen waxa marxaati u ahaa wixii aad iyo aflagaado loo geysanayay wasiir cali xoosh oo hawsha muuqaalkaasi oo dhameystiran qaybta dambe ayaad ku daawan doontaa dhinaca kalena maxaad kala socotaa heshiiska Masar iyo Soomaaliya ay galeen oo ka careysiyay Itoobiya heshiiskaasi oo faahfaahsan muuqaalka ay idinkugu soo gudbin doonaa hadii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena subscribe inoo dhegan balelkan furosay ku soo gaara muuqaalada kale xiga hadii aad subscribe inoo tahay inoo share garay like inoo sarsi oo gaar asxaab badan wad ku maasantaa daawashadaada aynu ku bilaabno madaxweynaha maamulka waqooyi bari Soomaaliya ayaa fariin hanjabaad ah waxa uu hawada u mariyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani isagoona ku eedeeyay in Puntland ay ka xun tahay jiritaanka maamulka waqooyi bari Soomaaliya madaxweynaha maamulka waqooyi bari Soomaaliya Cabdiqaadir Firdhiye ayaa waxa uu sheegay in markii la dhisay maamulkaasi ay Puntland ay ka xumaatay isla markaana waxan balyo ah u dirina Cabdiqaadir Firdhiye oo khudbad jeedinayay isla markaana dhinacyo badan hadaladiisa taawanaya ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay dadaal xoogan ay ku bixisay waxa uu sidoo kale uu sheegay in hadii ay yihiin maamulka waqooyi bari Soomaaliya ay indhahooda furan yihiin isla markaana ay dadaal ay ku bixinayaan wax kasta oo ka soo horjeeda sidii iskaga difaaci lahaayeen Saciid Cabdullaahi Dani ayuu ku eedeeyay inay isku dayo inuu ka hor istaago mashaariicda horumarineed ee laga hilgelinayo waqooyi bari Soomaaliya hal mar muuqaalkiisa aan daawano bari sida daraadeedna meesha kaga bixi doonto caqabadii ahayd World Bank-gu wali mashaariicdii ma siideen waqooyi bari mashruucan iyo faa'iidadiisa iyo waxtarkiisa iyo hanaankii loo soo maray waxa ka warbixiyay wasaaradii mas'uuliyiinteedii iyo farsamo yaqaanadeedii waxaan rabaa anigu inaan dhowr qodob ka idhaahdo waqooyi bari iyo mashaariicda maxaa kala haysta wasiir bidhaan waa ku mahadsan yahay waa uu tilmaamay arrimahan qayb ka mid ah laakiin waxaan rabaa inaan ku daro in maamul cusub ama state cusub oo hadeerta la dhisay ay mari waayaan ama laga fulin waayo mashaariicda horumarinta xilli hore wax uguba maaha reer waqooyi bariyo isteedyadii inaga horeeyay sanawaad bay ku qaadatay in mashaariic World Bank-gu fulinayo la geeyo isteedyada waxa marxaati inoogu filan madaxweynihii hore ee Galmudug oo hadeerna agaasimaha wasaaradda macdanta iyo batroolka Maxamed Xaashi Carabay ba halkan fadhiya teeramkiisii oo dhan waxay ku dhamaysteen in mashaariicda World Bank-ga aan laga fulin deegaankiisii ama state-kii mudaxiladii ka dambeeyay ee uu qorqor hogaamiyaha ka noqday sanawaadkiisii horena aan laga hirgelin ciladaas kaliya kama jirin Galmudug ee state kasta oo cusub baa soo maray waxa loo baahan yahay marka inaynaan inagu iska takoorin iska faquuqin process jira oo la wada maro oo aynaan u arag inaga in dhibaato gaara iyo hagardaamo inagu yahay madaxda qaranka ugu horeeya madaxweynaha iyo prime ministerku maadaama ay arkayaan reer waqooyi bari inay arrinka u qaateen inay victim gaara yihiin ama dad ayaan iska garanayn ay faquuqayaan oo takoorayaan oo victim ka dhigayaan labaduba waxay si joogta uga hawlgaleen in mashaariicda horumarinta laga hirgeliyo waqooyi bari
marka haddiiba ay wax inaga dib dhacayaan ama ayan inoo imaanin ma aha in xukuumadda haddeer jirtay iyadu ay sababteeda leedahay ma aha World Bankiguna reer waqooyi bari colaad gaaray dhibaato gaar uma qabo waxaan Soomaali baa la siiyay iyaguna waa Soomaali xilligii lagu heli jiray bay ku helayaan ama ka horeysa hadii la ka dhigo waxaan rabaa meesha inaan ka saaro ma jirto dawladda federaalka ah madaxdeeda iyo wasaaradaheedu hor istaag ay hor taagan yihiin ama ay ka reebayaan waqooyi bari wixii ay Soomaali ula sinaayeen ra'iisul wasaaruhu wuxuu amray halwadanada xafiiskiisa inay soo qaban qaabiyaan in la qabto shirweyne donors conference ah oo lagaga hadlayo in waqooyi bari deeqaha iyo mashaariicda toos loo gaarsiiyo hadii la ka dhigo shirka waxa jeergarayn doona ra'iisul wasaaraha waxa fadhiyo doona ka qayb qaadan doona wasaaradaha kiiga ee federaalka iyo sidoo kale dhigooda waqooyi bari arrimahaas oo dhan markaynu isku soo xoorino dawladda federaalka ah xaggooda gaabis kama jiro xagga dawlad goboleedka waqooyi barina gaabis kama jiro laakiin wada la soo wada maray oo muddo dheer qaadatay baynu doonaynaa inuu gelin ku marnaa reer waqooyi barina hayayno mashaariicda iyo developmentigu ma aha gooja cadiha aynu saacadaha kaga baxnay maaha aynu miirka soo ceshanno aynu ogaanno in ay jiraan mas'uuliyiin heer state ah iyo mas'uuliyiin heer federaal ah oo xuquuqdiina daba taagan idinna la idinka baahan yahay inaad ku kala soonaataan kuna garab siisaan sida uu wasiirku ka dhawaajiyay waxa jira eedo fara badan baraha bulshada yaala eedaha waa soo dhaweynaa dhaliisha waa ka garaabaynaa waxayna nagu bixinayaan in dadaalka aanu sii korino laban laabnaan laakiin waxaan doonayaa in eedahaas masdarkooda qayb ka mid aan ka diga hadii la ka dhigo waxaad arkaysaa baraha bulshada oo mar kasta la wareejinayo hadii waxa waqooyi bari ku jabto waxartaa jabtayna la andardanganaynaya daraadeed jiritaanka maamulkaba maadaama waxartaas jabtay maamul ma jiro dawladda ma jirto inuu kala kaxeeyo meesha lagu baayay lagu hoogi u fiirsada ilmaadar waan istaqaan cidda sidaa u kirtaas garanaysa maamulkeena laba meelood ka qiimeeyay dawladda federaalka iyo madaxdeedu dadaalkii ay u soo galeen inay dhisaan maamulkan waqooyi bari ee maanta aynu harsanayno aynu ku liibaanay weligood may hambalyeynay markaana dhismaha maamulkan ee ay dawladda garwadeen ka ahayd waa dhaliilayeen waa maagayeen waa ka soo horjeedeen waxa marxaati u ahaa wixii aad iyo aflagaado loo geysanayay wasiir cali xoosh oo hawsha garwadeen ka ahaa marnaba may hambalyeyn mana soo dhaweynay dadaalkii aynu ku soo gaarnay meesha aynu maanta joogno ee dawladda federaalka ay garwadeen ka ahayd weligood may hambalyeyn waxaad kaloo ka qiimaysaan waxaa jira dhinacyo fara badan oo Soomaaliyeed oo meeshan in dispute ka baxdo aan ogolayn inay dawlad noqoto aan ogolayn dadkani masiirkooda inay ka tashadaan horaan iyo dambaynba aan ogolayn baa jira dadka aan sheegaya ka digayay weligood iyagoo kuwa dhaleecaynaya ama ka cabanaya ama aad u jeedinaya lama arag reer waqooyi bari waa soo jeedaan waa waaye arag waa arkayaan halka sartu ka qurunsan tahay iyo ujeedada leeyahay oo dhanba warninkii markii dadkani dawladda dhisanayeen aan hambalyeeynayn ee dhaleecaynta ee dala daba taagnaa warninka marka dadkii ka soo horjeeday uu arkayo si dadban iyo si toos ah u taageeray inuu ka hortaga iska daayay ninka dhuumanaya dhabarku muuqdow waa lagu arkaa waxaan leeyahay reer waqooyi bari dawladda federaalka ahi dadka deegaanadan jooga way ka bareedhay siyaasad ahaan iyo qorshe ahaan iyo state ahaanba way ka bareedhay sabab hadeerto state-ka kan loo kuwashin gareeyo xiriirka kala dhaxeeya dawladda federaalka ahna haba yaraatee ma jirtaa halgankeennii markuu hal maalin soconayay 6dii bishii February bilaabmay 7dii bisha waxaa bogaadiyay oo taageeray go'aanadii 6 February soo baxay
xukuumadda federaalka ah waxaana ku dhawaaqay bayaankoodii wasiir Axmed Macalin Fiqi baa ku dhawaaqay ilaa iyo intii ka dambeysay dawladda federaalka ay kor bay u qaadisay taageeradeeda iyo xiriirkeeda ilaa ugu dambeyn ku meel gaarkii oo aynu 2 sano ugu talagalay iyadoo aynaan dhamaysan ra'iisul wasaare Xamza intuu soo istaagay magaalada tan uu yiri ku meel gaarkii waa laga baxay maamul rasmi ah weeyi waad ogeydeen golu kaga dhawaaqay wuxuu keenay casuumadii aynu kaga qayb gali lahayn golaha wada tashiga qaranka xiriirka dawladda federaalka ah iyo dawladda waqooyi bari u dhaxeeyay waa xoogan yahay waa firfircoon yahay kalsooni aad u weyn baana u dhaxaysa reer waqooyi bari iyo dawladda federaalka ah haddii mashaariicda la fulinayo tusaale ahaan dhaamam la qodaya reer waqooyi bari laga reebay tusaale siinaya dhaamka laynaga reebay qodista ama ceel laynaga reebay qodista daraadeed miyaa maamulkeenu u dumay ama u dumi karaya maamulkeenu haddii mashaariicu timaadana waa jiraya isagoo u taagan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed haddii mashaariicu dib u dhacdana waa jiraya lama ku weeshin garayn karo mana aqbalayna arrinka sidoo kale mashaariicaha kala duwan ee ka soconaya ama iman doona wadanka wasiirka waxbarashada arrimahan ka sheekaynayo ee waxna hore loo hirgeliyay GPE-ga waxna hadeerta la soo wado way ugu horeyso dhismihii xarunta wasaaradda waxbarashada ee waqooyi bari way ugu heliso dhismihii macadka tababarka macallimiinta ee waqooyi bari oo ay u heliyaan 2 iskuul oo loo dhisay gabdhaha reer waqooyi bari gaar iyagu leeyihiin waa la approve galay wasiir Faaraxna waa saxeexay mashaariicdaasi waxay u xaniban tahay in la dhulka laga dhisi lahaa nasiib daro weli dhulkii ma wada diyaarsan qayb diyaar mashaariic hala keeno iyo waa la keenay xagee laga fuliyaa dalkan dawladda iskale wixii aan toon barahin gaar dhinaca kalena maxaad kala socotaa heshiiska ay kala saxiixdeen Soomaaliya iyo Masar kaasi oo ka careysiyay Itoobiya dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ansixisay heshiis is-afgarad oo ay la gashay Masar kaasi oo lagu balaarinayo iskaashiga labada dal ee dhinacyada dekedaha iyo gaadiidka badda xilli Qaahira ay sii xoojinayso xiriirkeedii dalalka ku teedsan badda cas iyo gacanka cadmeed heshiiskan ayaa golaha wasiirada Soomaaliya ku ansixiyay waxaana ay dajiyeen qaab si toos ah ugu wada shaqeynayaan wasaaradda gaadiidka Masar iyo wasaaradda dekedaha gaadiidka ee badda ee Soomaaliya wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in heshiisku uu qayb ka yahay dadaalka dawladda lagu horumarinayo dekedaha dalka laguna balaarinayo xiriirka Soomaaliya ay la leedahay dalalka iyo hay'adaha kala shaqeeya ee badda inkastoo heshiiskan cusub si rasmi ah loogu soo bandhigay mid diiradda lagu saarayo gaadiidka badda dekedaha iyo horumarinta kaabayaasha haddana waxa uu ku soo beegmayaa xilli Soomaaliya Masar iyo Eritrea ay si weyn isugu soo dhawaanayaan dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga dhinaca kalena dawladda Itoobiya ayaa si weyn u arkin dhaqdhaqaaqan si kordhaya iyadoona ka xumaatay heshiiskii u dambeeyay ay kala saxiixdeen Soomaaliya iyo Masar wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa bishii May ku eedeysay Masar inay wado siyaasad lagu carqaladeynayo himilooyinka istiraatiijiyadeed ee Addis Ababa gaar ahaan dekedooda ku aadan helitaanka marinbiyood afayeenka oo hadla ayaa waxa uu sheegay in Itoobiya aysan ka laaban doonin raadinta marinbiyoodka isagoona ku adkaystay in ujeedada Addis Ababa ay tahay in nabadeed lagu doonayo iskaashi dhaqaale iyo horumar wadajir ah Masar ayaa dhankeeda ku adkaysanaysa in dal aan xeeb lahayn uusan xaq u lahayn inuu ku lug yeesho maamulka ama ammaanka badda cas inkastoo aysan ka soo horjeedin Itoobiya ay dekeda dalalka dariska ah u adeegsato ganacsi haddii arintaasi ay suurto gasho wixii xogay macluumaad ee ku soo kordho muuqaaladeena xiga iyo idin kugu soo gudbin doona hadii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhig gambalelkana furso ay ku soo gaara muuqaalada kale xiga hadii aad subscribe inoo tahay inoo share garay like inoo saar si uu gaaro asxaab badan oo aad ku maasantahay daawashadaada